ما ديدي كرو هدو ديد ولا جوليستي ومن دي كتاك هدو يالنا ولا جوليستي نكيل لو كاجوا حاجة على جوا تبتي وقميسي تبتي هذه وكله وقولين ماشي لما كان عقاب بدنا لما كان سياسات بدنا لما كان حكمة عقل بدنا وعلى يسوع وانكرت بيها اسمه قرصية اسمه قرصية وحلا سعتها واجي هراء هذا وضع هذا كان كوري فشل مي استجا مي كقاعدة استجا وزير والفافنات استجا وزير دفاع استجا وزير في الدبليو إثيوبيا هدي لسه كل ما يستجا دوري مصر هدي لسه كل ما يستجا دوري ودما نسبة هابين كريم بمدل بهابين كودال من نيروبي ودال مرسوس ومري وشقدي دنيد ودنكا وزارة كان لهاين تونك قوتا تونك يقوتا بورس وجران بورس وجران وحادي لاس عانود وجوجي بيدبو آدي انت هسو كم مغنان وحن شقوين كنت تطالع على الله مقعاب كما آمسا ساقر أردي macadka almashaariq online waa macad noociisu ku cusub yahay dalka laguna baranayo adoo gurigaaga ee goobtaada shaqada jooga quraanka shareecada iyo waliba luqadaha sida carabida ingiriisiga iyo waliba soomaaliga ardaydu marka ay dhameeyaan koorsada kala duwan ee dugsigan ka baxaya waxay helayaan shahaadooyin kala duwan koor kasta iyo goob kastoo haleelaysaba haata iska diiwaan gali almashaariq online kulanti waxaan wanaagsan soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena xogta maanta oo ku qaada dhigi doono mucaaradka Soomaaliya ama golaha mustaqbalka ee Soomaaliya oo gabi ahaanba shuruud adag ku xidhay gogashii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay 10 bishan May in la isugu yimaado magaalada Muqdisho oo mucaaradka iyo dawladuna ay kaga arrinsadaan arrimaha la isku khilaafsan yahay doorashada iyo dastuurka mucaaradka ayaa laba shuruudood adag ku xidhay gogashaasi labada shuruudoodna gadaal baynu insha Allah yaan ka falanqeyn doonaa waxay yihiin waa shuruudo ayna la'aantood qabsoomi doonin gogoshaasi sida ay mucaaradku hadalka u dhigaan dhinaca kale madaxweynaha waxay ku eedeeyeen mucaaradku inuu iska indha tirayo ama xaqiiqda indhaha ka qarsanayo warqadaasina ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn oo madaxweynuhu uu waqti dheeraysi uu ku sameysanayo dhinaca kale magaalada Muqdisho waxa ka socda maanta oo gabagaba maraya shirka mucaaradka beesha hawiye ay maalmihii ugu dambeeyay ku lahayn magaalada Muqdisho gabagaba maraya laftigiisana hadalla adag ay ka soo yeedhaan inkastoo aan wali war saxaafadeedkiisa uusan soo bixin saaxiibka Cabdiraxmaan Fakaada ila joogo qodobadaas isha soo mariyay dalqada inagu soo foodlana aan halka wada falanqeyn doonaa soo dhawaad Cabdiraxmaan marka hore waan dhawahay bal waxaad intayna faahfaahin u galay bal waxaad horta inoo sheegtaa golaha mustaqbalku jawaab laga sugayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gogoshii uu ku baaqay maxay kaga soo jawaabay bismillaahi raxmaani raxiim waa run oo waxaa laga sugayay jawaab waxaana loo diray waxaa la siiyey shax aan jid aan jara lahayn baa la siiyey hadday diidaanna u daran hadday yeelaanna u daran waxaan shalay barnaamijkii kan ka horreeyey ee aan gallay aan lahayn يعني لبا جيربا شروطها إيمان دونان واسدة لكن لبا جيربا هدي ديدان أودران هدي يلان أودران أو حسن واحد مدائن وكفير سدي نمان كان سيدي أنت مدحرات كيسو داف سنة يو ميا جار كذا وحكم مشغولين لأنه هذا وكفكرات مدائن سيدان شيء نبى ويصوح لين حين صوص صارين ور أي كريت جوابيان ورقدي وحسن صادري وركاسين وحيكون شيئين in uu wanaagsan yahay madaxweynuhu qaabka uu asuumaad u fidiyay ayna aqbaleen ayna tahay mid timid waqtigii loo baahnaa laakiin shuruudo adag oo xasan laftiisu sida uga baxaya ay adag tahay ay hordhigeen waan gartay shuruudahan filaya anigu oo ah in goobta la bedelo waxyaabaha noocaas ah oo dee xasan uuna yeeleen iyaguna ayna gar ku yeesheen su'aalo aan ahayn shuruudo aan ahayn bay soo dhigeen waan gartay maxay shuruudaas shuruudda koobaad waxay yidhaheen haddii uu rabo xasan in la oofiyo in ballantaa la soo buuxiyo gogoshaana loo soo ajiibo bil shardi waa inuu faraha kala baxo dhaqdhaqaaqyada uu wada ee doorasho waxaan macmalka ah ee uu koonfur galbeed iyo bahashi iyo ka wado doorashada usbuucan laga qabanayo magaalada Baydhabo calshan ha joojiyo taa Baydhabo laga qabanayo ta Galmudug laga wado ta Hirshabelle laga wado ta Muqdisho dhexdeeda laga wado dhammaanba wixii awlad doorasho ah ee uu falfaraynayo waa inuu faraha kala baxaa waan gartay qodobka labaad ee isna ay istaageen baa waxay yidheen in ay joogaan ama la keeno qowmiyadii dooniyo waddankay dooniyo ciddii dooniba ha ahaadaan dhexdhexaadiyaal nala arka xasan gacan saddexaad oo calashaan shirka saddexaad oo xasan nala aragta bal waxa uu maagan yahay waa in la helaa waa laba qodob oo iyaguna ay aad uga fiirsadeen
oo xasan uuna diidi karin hadduu yeelana laga guulaystay waa isla tii oo kale ma diidi karo hadduu diido waa laga guulaystay waa mindi ku taag hadduu yeelana waa laga guulaystay ninkii lawa kaa guba xagashaa laga guba tabtii uu ugu miisay tabteedii oo kale ugu dhigeen meesha lama kala aqoon badna lama kala siyaasad badna lama kala xikmad iyo caqli badna waa la waan gartay biyaha ismu qursan yahay waxaad la socotaa waagii hore ee hadda wadahadalkii kan ka horreeyey ee fashilmay xasan sheekh maxamuud intii uu nimanka la fadhiyey aadan madoobe wuxuu ka gargaarsiiyey dastuurkii macmalka ah dhowrtii qodob uu ansax mareeyey dastuurka dhan baa yaa la dhamaystiray ha ansax marayntii oo kaley diidan yihiin inta halkan lagu mashquulinayo inay hoos ka sii doorasho hoos ka sii la qabto doorasho hoos ka sii koonfur galbeed cabdilaac lagaga siiyo galmudugna hal habeen lagaga dhigo hirshabelena hal madin lagaga dhigo haddii la rabana inta iyaga lala hadlayo puntland lagu ruqaansado qorshayaashaas oo dhan inta annaga lanala fadhiyo shaqo kasta ha istaagtay yidhi bataatanba dad noo kala garsoora oo xasan nala arka waxa uu wado iyo qorshihiisana waa inay meesha yimaadaan may qeexeen dadkaas mayna qeexin laakiin gacan saddexaad dhexdhexaadi waa uu noocu doono noqon karaa marka waa sidaa noqon kara beesha caalamka noqon karaa cid awood leh garadka cid awood ileen siyaasiyiin hadda Soomaaliya oo kala qabta ma jiraan waa un cid awood leh muhiimaddu waa inay ciddaasi awood lahaato ama beesha caalamka ha ahaato ama odayaasha dhaqanka ha ahaato ama culimada ha noqoto culimadii in kastoo ay uun wax dhexaad oo fara badan hadda aanan arkin laakiin shacab wajis ba jooga shaclojisda waa xisbi ka tirsan yahay waa xisbiga JSB soo ka ballaariyay muxuu ballaaray kolkii gurigiisa lasoo jiiray buu ballaaray siiyay kolkii guriga la dadweyay kiisa lagu daray iyo inuu ballaariyo dabcay uu ballaariyo siiyay shaclojis waa gudoomiyaha arrimaha diinta iyo awqaafta ee xisbiga JSB xisbiyadu sida wasaaradda awqaafta oo leedahay xisbiga laftiisu madax diimeed leh موضوع يعني كلام من مركب وان قرتي waxay laba shuruudood soo dhigaan shuruudda koowaad waxa weeyaan in uu madaxweynuhu joojiyo gabi ahaanba doorashooyinka iyo jadwalada uu soo saarayo gabi ahaanba wixii shaqo ee doorasho ee socota in halkooda lagu istaajiyo taatanba in faraha lagala baxo ha qodobka labaad waxa weeyaan waa in dhexdhexaadiyaal ka madax bannaan siyaasadooda ilo Ethiopia ma ahaatay siyaasadooda hadda isku hayaan ka madax bannaan oo saddexaad in la helo oo miiska la fadhiisato oo labadooda la isku sii deyn maadaama soo garan sii deynin oo maqraati ay jiraan wax la isku diiday warqadda waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu inay soo saareen maalinkii 13 bish 3deedii baan dabcan yaan filaya in warqadda la soo saaray isla bish 3deed waxaa la soo saaray jadwalka doorashooyinka way xuseen waxay yidhaheen maalinta uu warqadda soo saaray maalintii ka dambeysay jadwal doorasho soo saaray say isu qabataa marka madaxweynuhu daacad kama bay ka dhigan tahay maya maalintii ay Axmed iyo Dani joogeen garoonka bahalkii dastuurkii uu meel mariyay maalintuu iyaga warqadda u soo dirayna shaacintii jadwalkii doorashada yuu shaaciyey nimanka uu gogasha u fidinayana waxa lagala hadlay waa waxaan u shaacinayo uu sii eriyey marka mar walba uu shaqo qabanayo oo uu rabo inay shaqo u qabsoonto shir buu ku baaqayaa shirkan uga gol leeyahay inuu nimankan ka mashquuliyo shaqada u socotay yool habaabin baa la dhahaa yoolku habaabinaya xaggaas uga tuuraya qaw ka sii waxna ha u qaban buu haddana xagga ka samaynaya xaggu iyaga farta uga fiiqaya xaggaasay fiirinayaan tan uu hoos ka siinaya waa wixii dastuurka ku dhacay waa laacib madaxweynuhu isaga nimaan ahayn muna Soomaalida uga dhawaajiyeen xaqiiqatan waa hore lagu kala bixi lahaa isaga intay nin kale oo Soomaali ah ku aynaanba arkin mooyaan oo inoo dhiman mooyaan oo intaan aragnay intay Puntland iyo Jubbaland xagga iyo xagga ka fadhiistaan oo mucaaradka reerkiisa ay ku ugu weyn harraha kaga dhawaaqaan inkastoo ra'iisul wasaaruhu uu caawinayo oo ninkan gudihiisa hadda dab kaga shidan una jirin banaanka iyo mucaaradka mooyaan moogtahay waa balaayadu waxa maraha ku galay waran midkii aad wadato kugu dhacaa wayla guul hadduu ilaahay ra'iisul wasaaraha uu kugu taago balaayo ka daran ma jirto roobla kugu noqdo oo isaga oo lugta kugu galo waxaad samayn kartaa ma jirto muddadiina kaa dhamaatay bal sidee u ekaan lahayd Xamza oo sida hadda rubiyada isu gudba xasan farmuna dhaqaajiyeen laba war saxaafada isku xigtay inay soo kala saaraan Xamza waliba ka awood badan hadma waqtigu mar hadduu dhamaado oo waqtigu gabaabsi noqdo doorasho muddo gaarsiinta inta badan ra'iisul wasaaraha lagu yaqaanay iyagana xaq u leh
laakiin xasan doorashadiisa waxa xagga awoodiisa waxa inta badan caawinaya waa ra'iisul wasaarihi oo wax dhiba ku haynin oo meesha uu ka caawismayo isna wuxuu u dhashay kul iyo karti iyo laqdabo iyo isdabamarin iyo xisaab iyo madaalanimo maanta dhan uu ordi kuwa gudihiisa ahbuu wax kala waxayn mucaaradoo dhan buu u jawaabi isagaa mayga qaadan isagaa wasiir warfaafineeda isagaa wasiir difaaca isagaa wasiir arrimo dibadeed Ethiopia haddii lala soo kulmayo isagaa duulayo Masar haddii lala soo kulmayo isagaa duulayo wadamo aan isba taaban karin buu mid walba habeenkii u dheelmo midna aroortii u dheelmo isugu soo mari shaqadii dhannayd ee wadanka ee wasaarada kala lahaayeen tunka ku wataa tunka iyo ku wataa boorsa ugu jiraan boorsa ugu jiraan wuxuu aadi laascaanood wuu joogi baydhab uu aadi intaasuu ku maqnaan waxaan shaqooyinka dad baa lahaa loo magacaabo kuma aaminsan isaga garab orday Kenya caawa xaflad yar ka dhici safiirka inuu taga ahayd meeshii joogi isagii baa taagay intaas oo dhan waxaa u dheer ninku waa nin weyn waana nin khibrad iyo isdabamarintan iyo waxaan dee Soomaalida nin waddan ka baxay ma ah oo soo waxaysmay ka ugu khabiirsan waa qofka aan waddan ka bixin moogta intaas oo laqdaba iyo intaas oo isdabamarina mucaaradku waxay ugu dhacaysaa farmaajo moogta nin Mareykan oo ah nin reer galbeed u ah waa uu laga dhawaaqayay oo waa dictatorship baro kale noqonay oo wada malaaye nin miskiin u baax ilaan markaad wax ka daran aragtaan isagii xusuusan moogta qofkii inagu qalbi dhagax buu dhiibay tallaaay ma lahayn uu kula ordayno meeshii kastoo lagula dhiga buu si u ka cararayay marka maadaama oo xasan kulkiisii uuna dhanka wanaagsan iyo kartidiisii dhanka wanaagsan u adeegsanay wuxuu ku ciqaabay wadankii wuxuu iskaga hor keenay siyaasaddii wuxuu ku kala firdhiyey dadkii wuxuu ku qasay oo nin walba dhan ugu istaajiyey saamileydii siyaasadda waxaa maanta shir ugu soo gogobaya oo muddo dhowr maalin uga socday magaalada Muqdisho siyaasiyiinta beesha hawiye isaga ku haybta dhammaantood intii mucaaradeeda dhan intaas oo nin kastoo xil soo maray oo ku jiro madaxweyne hore ra'iisul wasaare hore wasiir hore maxay hore wixii oo dhan وهو غرفة دي. سؤالك هذا حويدي معارض كاشرية. معارض كوريو صو شرين. ورصحافات بسو صارين. إسلام معارض كبيش هوية لفت قضية هاي كل شري. الشركة ما عندها صعودا وإسلام معارض كبيش هوية. ما أجندة دجال بكهليان مقرشيال دجال بقاضنيان وحين هراء وصو هاللين هذا كهليان أو ما أنت جبده ومحيه. mucaaradku kale yahay oo marna waa golaha mustaqbalka iyagu beesha hawiye ay hadana golaha mustaqbalka yihiin oo shirdoon kula jiro oo hebel kula jiro oo kuwaan hawiye ahayn ay kula jiraan marna waa kuwa hawiye oo khaas ah oo khayri iyo rooble iyo shariifki iyo sambulush iyo ragga noocaas waa laba marka kala awood badan kuwani marka isagay u sii jifayeen waa dadkii gacanta qaban lahaa waa dadkii lagu xurmeeyay la yidhi warbal meesha si naga soo dhax maalintii dhaweyd way hadleen hadalkoodina waa ka sababay in warqad gobol fidin ah oo soo saaray iyagoo golaha mustaqbalka laakiin maanta waxay yidhaheen 15 May haddii sida uu wax ku wado uu xasan ka joojin waayo jawaab baan bixinaynaa rasmi ah maxay noqon kartaa jawaabtaasi yani jawaabtu dagaal bay noqon kartaa war saxaafadeed bay noqon kartaa laakiin maadaama war saxaafadeed in badan war saxaafadeed mal tagnan maadaama war saxaafadeed in badan la qabtay waxa laga yaabaa inay war saxaafadeedka kor yar dhaafaan kolay mudaharaadaan waxan bay sameynayaan kolay dhiig kaga gashaan laakiin waxay sheegeen 15 May haddii la gaaro isaga oo sidan wax u wada inay jawaab bixinayaan jawaabta bixin karaan maxay tahay maanta waxaan arkay hadalka waxaad moodaa inuu si uga kulul yahay hadaladii hore haddana inuu si uga qabow yahay moodaa waayo wuxuu banaynayaa xasan sheekh maxamuud haddii isagoo waxaan joojiyay 15 May gaadho la hadlimayna waan daynaynaa waxay dhaheen haddii uu 15 May kadib waxa sii wado ama la gaadho isagoo hawshan wada jawaab baan bixinaynaa hawsha doorashooyinka bay ka dhigan tahay Soomaaliya ha jawaab baan bixinaynaa jawaabta la bixinayo iyo awoodeeda lama faahfaahin inta badan waxyaabahaas noocaas aad looma faahfaahiyo laakiin waxay sheegeen inay jawaab bixinayaan jawaabtaas marka maadaama ay mar walba war saxaafadeed qabanayeen waa un dagaal la maldahayo iyagana iyagu marka awoodooda iyo xogtooda iyo meeshay ku qadqaadayaan iyo xeraday weerarayaan laakiin in dagaal la qaadayo
yay ka dhigayaan oo ekaysiinayaan sida ah luuqadda aad moodayso nimankaas waa jifadii waa raggii ceelka ku jiray xogta ay keenaan yaa lagu shaqay mucaarad oo dhan xogta nimankaas ay keenaan waana nimanka ugu saameyn badnaa waana nimanka ugu jifaysnaa ugu xigay iyagaa marka looga dambayn oo ahlulbeyd oo la odhan bal xogtan haysaan ee u dambaysay ku howlgeli karo noo sheega hadday dagaalamayaan iyagaa muqdisho la degan oo dagaalami haddii ayna dagaalamaynin iyagaan dagaalamaynin hadday kursiga siinayaan ku beerayaan iyagaa ku beeri marka iyagu way ka saameyn badan yihiin qofka gedo ama burtinle iyo bahasha kasoo jeeda hargeysa iyadoo aynu ognahay magaalada muqdisho xaaladda hadda ku sugan tahay oo maanta taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 2 jeer 3 jeer hore soo noqday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed odawais faraagay aynu arkayna in ciidanka booliska magaalada dhexdeeda ay ka kala wareeg dhahaan ku qasbeen inuu dib u kala noqdo waliba xabada ku rideen oo aynu ognahay ciriiriga amni ee magaalada hadda gudaheeda madaxweynuhu ku soo kordhiyay talaabada ay qoladan mucaaradka oo shacabka hadda oo hubnayna ku ogeyn ay qaadi karaan war saxaafayad dhaafsan oo hadda hotel Jazeera loo ogolaaday laga yaabo maalmaha soo socda hotel Jazeera loo diido oo la yiraahdo gurigiina ku shira oo danta ku qasabto guriga Sheekh Shariif inay dib ugu laabtaan maxaa shaqo maxay ka bedel karaan horta odawaa hawshiisa aan dib ugu noqday maanta waxaad moodaa inuu ka badbaaday dil odawaa sababtoo ah nin taliya ah oo jid laga xidhay xabadana lagu riday hadday xabada dhacday ismaandhaaf xabadaas ku dhacday moogta khatar meeshii u dambeeyay iyo maraya Sambalo Shah wuxuu yiri jagada ugu weyn jagooyinka lagu dhiibi waxa lagu sameeyay cadow iyo dakane waa lagu baran maalinta xilka laga qaadana waa lagu tuuri waa tabti oo kale shalay waa xilka laga qaaday maantana askartiisii askari aan xilba haynin yaa xabadaynay waa arrin aad dhibaato ah arrin aad xanuun badan waa arrin muujinaysa meesha ay wax marayaan sidaba odawaa marka keligii ma aha xasan wuxuu xadiday awood kasta oo dhaqdhaqaaq oo isaga ahayn hadduu staff laba hal ku joogaan xerada isgeynayaan mid dharcado bastoolada lagu soo siinaya iyagina xerada lagu xareynaya xasan soo sax ma arrintaas laakiin marka dhinac laga fiiriyo Cabdiraxmaan sababtoo ah dawladda in awood badan oo isgarab yaaca ay wadanka joogto soo wadanku wuxuu la burbursan yahay maaha haba qalloocnaatay in awood hal dhinac isugu tagto oo hal awood uu dal ka jirto laakiin soo qaacida sax ma waa qaacida sax laakiin qofka awood ururinaya isagu muxuu uga faa'iideysanayaa in la isweydiiyo soo xasan muxuu uga faa'iideysanayaa dantuule ma amni wadan ku ilaalinaya ma dad buu gaar u xabisaya ma doorashadiisa kursigiisa ku ilaalinaya yani ma aha inuu amni ku ilaalinayo doorashadiisa kursigiisa ku ilaashanaya taasina waa xaaraan boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay xasan maanta haddii kursigiisu ayna saameyn ku lahayn jidadka muqdisho soo galaana mayna xidhnaadeen odawaan halkaa lagama celiyeen meeshuu doonu tegi lahaa ilaa taliya ciidanka gabagabadii qodobkan labadan qodob ay soo saareen mucaaradku iyo shirkan maanta soo gabagaboobay hadallada aad ka jeediyeen Cabdiraxmaan Abshakuur oo kale uu yiri 15 hadii la gaaro oo madaxweynuhu sidan ku socdo talaaban qaadayna maxay ku soo kordhin karaan geed socodka siyaasadda Soomaaliya yaslada geed socodku inuu kii la yaqaanay ma waa ku ka bedelan kii la yaqaanay geed socodkan in la arka mooyaan lama saadaalin karo geed socodka lafta gareen oo saadaalinaynay hal casar kaga saaray magaalada inta naqaana way dhaaftay siday noqoto ma arkayna mucaaradku awoodiisa wali mayna muujinin inayna isticmaalinayo cid u baqayaan iyo inayna awood bahaynin labadaas kala tahay marka isaga waqtigu is sheegaya maalin walba wuxuu is sheegaa ka arkayna marka aad baad mahadsan tahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa qodobkii aan kaga hadlaynay doorashooyinka Soomaaliya iyo war-saxaafeedkii ay soo saareen madasha mustaqbalka Soomaaliya iyo shirka isaguna maanta soo gabagaboobay saacadaha inagu soo foolday war-saxaafeedka laga saaray u socod siyaasiyiinta beesha hawiye intaynu qodobkan qodobka ku xigay soo imaanayna waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan iyo goob kasta iyo goor kasta oo joogtiinba nabad ahaada